بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، درسكنا maantu إن شاء الله wuxuu ku saabsanaan doonaa موضوعa ay walaaladeen u bixiyeen mubashiraat في زمن الاستضعاف. موضوعa ay walaaladeen u bixiyeen mubashiraat في زمن الاستضعاaf waa mawduuc runtii casrigan ama wakhtigan aynu joogno xayiya u baahana qofka muslimka ahi in lagana warramo, lagana yaabo isagoo cinwaano kala gedisanaya inaan muddaba ka warramayo wakhtigan dambe. mawduuca kani sida idin muuqata waxa uu sheegayaa inay jiraan astaamo iyo calaamado tilmaamaya in islaamku uu soo noqonayo imanayana oo aanay ka muuqanin wax lagu tilmaami karo xoog dhammaantii. jaanibka kale marka la eego waxaa dadku in badan u arkaya isla weyni badan oo gashay gaalada marka la eego gaalada noociyaadkeeda kala gedisan kristan, yahuud, mushrikiin, noociyaadka hinduus, buduus, waxaasoo dhan waxaa muuqata meelo badan in dad muslimiin ee dunida lagu leynayo waana cidina u naxaynin. waxaa muuqata iclaamka caalamigii inuu isku dayayo inuu inoo sheego inaynu dhimannay oo ma'tamkeenii la fadhiyo iyo axankii in la cunayo oo meel aynu ka hadallaa baanay jirin. maadaamaad geeriyoto axankaagii la cunayo yacni intaha qadiyato, adiga warkaagiiba inuu dhammaaday. waxa uu iclaamka caalamiga maanta jira isku dayaya in laynaga xoog badnaado qura inaan layna tusin, laakiin in layna tusiyo inaynu ku qanacno sidaasi oo laynaga dhaadhiciyo inaan soo noqosho laynaga filaynin, oo laynaga dhaadhiciyo wakhtigeennii inuu dhammaaday, oo laynaga dhaadhiciyo xaq inaynu u leenahay inaynu dhimanno, xaq inaynu u leenahay inaynu geeriyoonno oo aan dib laynoo soo hadal qaadin. dad badan suuraddaas oo aada u madow ayaa horta alla qaarkood ay u muuqato basis min alamal la xataa meel yaroo iftiin ka soo baxayana aanu arkaynin. xag iyo xaggaba markuu eegayna ay ugu muuqato dhibtaasi inay aada iyo aada ugu adag tahay. awalan waxaynu leenahay horta qofka muslimkii waxaa habboon inuu mutafaa'il ahaado. waa mar labaad ee waxaa habboon siduu nebiguuba sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, bashiruu walaa tunafiruu, waar bushaareeya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo dadka ha firdhinina. waa mar saddexaadee diintu waxay noo tilmaamaysaa walaa taya'asuu min rawxi illaah, inaynan quusanin. bale qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa quusashada iyo qunuudku akhul kufri inuu yahay. qof alle rumaysan oo rumaysan kownka dhammaantii biyadihi lmulk, allahuma maaliki lmulki tu'ti lmulka man tashaa, si rumaysan in ilaahay adduunku dhammaantii gacantiisa uu ku jiro, dhanka uu doono inuu isagu u dhigo, sida uu doono inuu ka yeelaa, inuu quustaa iyadu meeshiiba kuma jirto. bale islaamku wuxuu ina barayaa quus dhaafe inuu qofka muslimkaahi camalka aanu joojininba, weliba xataa hadday u muuqato in qiyaamadiina dhacayso. yani nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila. wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, haddii qiyaamuhu dhaco oo ad aragtaba qiyaamihii oo dhacaya oo midkiin gacantiisa ay ku jirta buu nebigu yidhi fasiila. fasiilada waa geetimireedka yaree la abqaalayo la beerayo, geetimireed yari ay gacantiisa ku jirto oo uu beeri inuu isagu yahay nebigu leeyahy falyagrisha
haddaad ka gaadhsiin karto in qiyaamaha dhacaya inaad geedka beerto beer buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh. haddaba qiyaama dhacaya, dunida gebigeedba waa la baabiinaya, waa la rogaya. laakiin nebigu misaalkan wuxuu u tilmaamaya qofka muslimka ahi acmaasha nooca uu u fakerayaa siday tay. adduun baa rogmanayay, qiyaama dhacaya, kan inaanu hayne inuu isagu yahay qof muntij oo wax soo saar leh oo camaliya inuu noqdo. waxa aan rabaa inaan dhowr shay tilmaamo markaasi. dhowrkaa shay aan raba inaan tilmaamo, waxaan rabaa inaan caddeeyo in sida laynoo sheegaya aanay ahayn, in nolosha wax iska beddeli doonaan, inuu amal badani jiro, astaamo badan oo tilmaamaya inuu islaamku soo socdaa inay jiraan, wax badan oo lagu farxo muuqan doonaa inay jiraan. waan idinku wacdinaya, waxaan idin leeyahay sidaa qaata oo rumeeya. waxaan leeyahay wax adilo leh. waxaan isku dayaynaa inaan adiladeedna ka tilmaamno kow min alkitaabi wasunna, qur'aan iyo xadiid waxay sheegayaan oo alle warkiiya. mar labaad waxaan rabaa inaan ka tilmaamno min ataariikh iyo isbeddelka taariikhyada noloshu siduu ku dhaco iyo siduu ahaan jiray. mar saddexaade waxaan doonaynaa inaan ka tilmaamno astaamaha maanta yaalla iyo saadaalinta basharka uu ka saadaalinayo, gaal iyo muslimba sida loo saadaalinayo ee mustaqbalka looga saadaalinayo. ugu horeyn, ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kulih walow kariha almushrikuun. wa fii suurati tawba aayadda 32-33. fii suurati alfatx ilaahay wuxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini wakafaa billahi shahiida. aayadda 28 ee suurati alfatx. fii suurati asaf ilaahay wuxuu leeyahy yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kulih walow kariha almushrikuun. 3 suuradood oo qur-aanka ka mid ah, 3 aayadoodoo ku jira oo 3duba macno isku mid a tilmaamayaan baa ilaahay ku bishaaraynaya. 3 goor baa ilaahay warka ayna siiyey. 3daa jeer weliba 2 gooroo ka midana war labaad oo isku mida baa ilaahayna siiyey. kow, 2da aayadooda hore, aayadda 32 iyo aayadda 8 ee suuratu saf iyo tawba, ilaahay wuxuu leeyahay gaaladu waxa ay doonaysaa inay ilaahay nuurkiisa bakhtiyaan oo ay afkooda ku bakhtiyaan, kaanama ay cadceedda rabaan inta la afuufo inay bakhtido. iyagu saasay doonayaan. garta waa doonis isku day leh, waa doonis diriir iyo dagaalba leh, waa doonis la tijaabinaya in waaqaca laga xaqiijiyo, waa doonis hawsheeda oo dhan wadata. waayo ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya inay idinla dagaalami doonaan. waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya inaanay yuhuud iyo nasaari marnaba raalli idinka noqonaynin. waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamaya inay rabaan inaan khayrba alla idin siinin. waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya inay doonayaan inaa ambataan. waxaasoo dham oo aayado qur-aan aan sheegaya macnahood. doonistaa way qabaan, waana isku dayayaan, laakiin natiijadu maxay tahay? iyagu saasay rabaan, xoog iyo xoolabana way ku bixinayaan, waana masale ay u halgamayaan. waxaad taqaaniin maanta waxay yidhahdaan cilmi اlistraatiijiyaat, in mustaqbalka la daraaseeyo oo la eego sida u ekaanayo. maxaa loo daraaseeyaa? waxaa laga saadaaliyaa iyadoo la eegayo taariikhdii hore lasoo dhaafay iyo waxa maanta jooga
ayaa waxaa laga saadaaliyaa mustaqbalku siduu u ekaan doona. ummad waliba macaahideeda ama instituteskeeda ama research homeskeeda dhulkeeda wax baadhaa, cilmi baadhis waxay ku sameeyaan ay ka warramayaan wixii tegey iyadoo laga istintaajayo taarikhdii basharka iyo siday u dhacday iyo natiijaday keento, asbaabaha marka la arko in waxaas ka ratibmaa waxa yaalla iyo mawaaqicda xoogga iyo dunidu say u kala xoog badantay iyo dhaqaaliya hanti iyo dad iyo fikradba say u kala badantay maanta jira. kuwaasaa waxaa lagu bineeyaa mustaqbalka soo socda iyo sida uu ekaan doono. mustaqbalka soo socda maxaa laga rabaa? mathalan waxay eegaan waxa soo socdaa muxuu noqonayaa. waxaa laga yaabaa inay markay daraaseeyaan yidhaahdaan muslimiinta laga yaabaa inay quwo soo baxaysa noqoto, innaga laga yaabaa inaynu noqono quwo sii dhimanaysa, asia laga yaabaa inay quwo soo baxaysa noqoto. waxaa la baadhaa markaa mawaadic alquwa, meelaheebaa xooggoodu dadkan ku jira, meelaheebaa se innaga dacfigeennu ku jira, liidashadeennu ay ku jirtaa. marka taa la xadido ayaa waxaa la baadhaa markaa xal ah istaraatiijiyada lagula dhaqmaya siday noqonaysaa. kow, cidda dee kuwa cadowgaa markaad ogaato meelaha xooggiisa iyo meelaha dacfigiisa, waxaad isticmaalaysaa inaad isku daydo meel kastoo xooggiisa sidii aad u wiiqi lahayd, yaani u suurto gasheen in waxaasi dhammaystirmaan. waxaad isku dayaysaa meel kastoo dacfigiisa iyo liidashadiisa muujinaysa inaad isku daydo inaad sii ballaadhiso, nabarka iyo boogtu ay weynaato oo ay sii ballaadhiso la toli kari waayo lana dhayi kari waayo. cilmiga lagu leeyahay culamada istaraatiijiyada waxaa sheegtay kan sheegtay waa inta la daraaseeya. waxaa la daraaseynaya inu mujtamaca kan iyo mustaqbalkiisa siduu u ekaan doono, si howlgalka maanta la qabanaya ugu salaysnaado waxaa soo socdaa siduu u ekaado. ilaahay wuxuu yidhi waxa ay doonayaan inay baktiyaan ilaahay ifkiisa. kaasi waa doonis, waa hadaf meel yaalla. laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wasiiladay wataan inay tahay af. biafwaahihim baa ilahay ku tilmaamay, af bay rabaan inay ku baktiyaan. ilahayna muxuu rabaa? ilahay wuxuu yihi waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun. ilaahayna wuu diiday inuu nuurkiisa dhammaystiro mooyaane walow kariha alkaafiruun baa ilahay leeyay. haba diidaanoo ha nacaan kuwa gaaleed baa ilahay leeyay. kuwa gaaleed masaladaa ha nacaan oo ha ka diriraane aniguna sidan baan doonayaa baa ilahay leeyay. fi suurati tawba iyo fi suurati safba. walidalik ba aayaad badan oo qur-aanka ka mid a ilahay wuxuu inoogu tilmaamaya wamaa kaydu lkaafiriina ilaa fi dalaal. dhagarta iyo makrintay wadaa nimanka gaaleed baadinimo mooyaane wax kale ma aha. wamaa kaydu fircawna ila fi tabaab dalikum waana allaha muuhinu kayd lkaafiriin wallahu gaalibun cala amrihi walakina akthara annaasi laa yaclamuun wamakaruu wamakara allah wallahu khayru lmaakiriin. ilahay wuxuu leeya yana makrin iyo khiyaamo iyo dhakrin iyo istraatiijiya wadaanana mid baan wadaa, ta allahna khayr badan baa ilaahay yidhi. iyagu waxay isku dayeen inay guulaystaan, laakiin ilaahay baa cid kasta ka xoog badan. laakiin dadka badidii ma oga baa ilaahay yidhi, dadka badidii ma oga. waxaan leenahay ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda. aayadda ku xigta markaa ilahay wuxuu leeyay huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulih. ilaahay waa ka soo diray in rusushiisa bilhuda ku soo diray si uu uga kor yeelo diimaha dhammaantood. dabeetana ilahay wuxuu ku gebagabeeyey walow kariha almushrikuun. xataa ha necbaystaanba kuwa gaaleed baa ilahay leeyahy subxaana wa tacala, ha diidaan ama ha necbaystaan kuwa gaaleedba. aayaadkaasi waxa ay sheegayaan iyaguna in aanay marnaba suurtagal ahayn in ilaahay tiisa laga guulaysto. weliba waxaynu leenahay waxa ay sheegayaan mustaqbal soo socdaa inuu jiro oo masaladan ku saabsani. sidaa awgeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay wuxuu sheegay in ay mushrikiinta qaar ka mid ama dadka qaar ka mida inay shirki dambe samayn doonaan, ataya cusaya waxyaaba qaarkood in dib loo caabudi doono. markaasay caaisha intay aayaddan akhriday bay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad moodaya aayaddani markay soo degtay in wax waliba taam noqdeen.
ma mar dambe haddana shirkigu soo noqon doonaa wuu noqon doonaa taan buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. yani xadiidka wuxuu tilmaamayey waktigiisiiyo qudha dhammaystirankan inaanu ahayn inuu mar dambe taam noqon doono oo ay dhici doonto in islaamnimadu mar dambe ay taam noqon doonto. walidalik ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkiisaasi ugu tilmaamaya in islaamnimadu ay guulaysan doonto. aayaadkaasi waxa ay sheegayaan kow alle subxaanaه wa tacaala waxa hum walbiye aan bal aayado labaad tilmaamno oo masaladan oo kale ka warramaya. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum alfaasiquun waaqiimuu الصalaata waaatuu الzakaata waaطicuu الrasuula lacalakum turxamuun laa taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi اlard wama'waahum الnaaru wabi'sa almasiir. ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamay ilaahay wuxuu yaboohay oo duulka mu'miniinta ah u yaboohay iimaan iyo camal saalix oo suuban kuwii laga helay layastakhlifannahum. laamku waa allaami lmuwati'a lilqasam, qasam maxduufa ayay laamta tani ina makansiinaysaa. waxaa ilaahay leeyahay layastakhlifannahum fi lard, allaan ku dhaartaye waan khilaafada siinayaa dadka mu'miniinta ah ee ilaahay raacay sidii mu'minkii iyaga ka horreeyeyba aanu istikhlaafsiiyey ba alla leeyahy subxaana wa tacaala. waxa aan makansiinayaaba ilaahay leeyahay diintooda aan raalli uga noqday. waxa aan ugu bedelayaabaa ilaahay leeyahay cabsidooda dabadeed amni baan ugu bedelayaa. baqa intuu ku yimaado baqaha dabadii amni baan siinayaabaa ilaahay leeyahy. maxay ku xidhantay? yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a. waxay ku xidhantahy un baa alla leeyahy subxaana wa tacala in waxa kan la helo sharti qudha inay fuliyaan oo aynay aniga ay caabudaan cidna aanay igu shariik yeelin. aayaadka kusii xigaa ilaahay wuxuu ina leeyahay marka aayaddani waxay sheegaysaa in la guulaystaa inay ku xidhan tahay un iimaan iyo camal saalixa. yabooh ilaahay ballan qaadayna inay tahy umankii horena yaboohan in ilaahay u ballan qaado uu siiyey, kuwa soo socda iyo kuwa hadda joogabana in la siin doono mar kastoo ay fuliyaan. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy laa taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi lard wama'waahum الnaaru wabi'sa almasiir. ha una malaynina baa ilaahay yidhi kuwa gaaloobay inay aniga dhulka ay cajsi gelin karaan, booska ay ku gabagaboobi doonaanna waa naar iyo masiirkoodu meesha ay ku dambayn doonaan. aayaadka qur-aanka ah oo dhami mas'ala waaxida bay tilmaamayaan. ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala mustaqbalka waxaa yeelanaya dadka mu'miniinta ah. waxaa ilaahay kelimatu tawxiid ama diinta markuu sheegayo ku tilmaamaya alam tara kayfa daraba allahu mathala kalimatan طayiba ka shajaratin طayiba xoorka iyo bafsuluhaa haabit wa farcuha fi الsamaa. waxa waa la tilmaamaya subxaana wa tacaala faama zabadu fayadhabu jufaa wa ama maa yanfacu الnaas fayamkuthu fi lard. islaamnimada iyo xaqu inay yihiin geed jirid adag waan cidi fujin karin. waxaa alla uu tilmaamaya subxaana wa tacaala xoorka iyo bafbaftan sare way guri doonaan baa ilahay yidhi wa amaa maa yanfacu nnaasa fayamkuthu fi lard. waxaase dadka anfacaya baa ilahay leeyahy dhulkuu ku hadhi doonaa. waxaa dadka anfacaya dhulka ayuu ku hadhi doonaa. kadalika yadribu allahu lamhaal. aayaadka badan ee qur-aankii aynu akhriyayna waa aayaad qur'aana oo ilaahay kitaabkiisa ku yaalla oo dhammaantood ilaahay uu kaga warramayo in ummadda muslimka ay guulaysan doonto. kataba allahu laaglibana ana wa rusuli in allaha qawiyun casiiz. ilaahay wuxuu leeyahay waxa aan qoray inaan anigu iyo kuwaan dirtee rusushayda ahi guulaysano. sababtu waa maxay? dee anaa ah baa ilaahay yidhi alqawiyu alcasiiz, ka xooga badan
ee qaalibka aan laga xoog badnaan karin anigaa ah. waxaa laga yaabaa inay idinla baciid noqoto a istidhaahdaan waarma dunida tan ragganina nuclear weaponska haystaan iyo dayaxgamcaadada iyo B-52 iyo qalabkana gudcurka guda iyo kuwan dadka meesha madow fadhiya arkaya iyo waxa kan iyo nimankan cidlada fadhiya ayaad leedahay baa haddana kuwani guulaysan doonaa. hakada taqul ilcuquul. waa laga yaabaa in caqligu saa sheegaya. ilahay saasuu sheegayaa baan idhi, waan tilmaamay alla subxaana wa tacaala siduu sheegayo. laakiin iclaamkii iyo tvgii iyo jaraa'idkii iyo wixii laynagu akriyay iyo xoogaaga aynu aragnay dad ku dhacay iyo intaa marka laysu geeyo waxaa laga yaabaa inaad haddana tidhaahdo how is it, say waxaani suurtagalotay, hada macquul. garanayo ilaahay hadduu warramo warkiisu waa dhab, laakiin haddana waaqaca waxaanu aragnaa wax kale oo maxay malaa dhanka kale u tilmaama. waxaynu u noqonaynaa taariikhda intaanan axaadiista u gudbin masalada tan ka warramaysa. ataariikh waa meel ku tusisa tajaaribta bini aadamka, waa meel laga daraaseeyo burburka ummadaha iyo soo kicitaanka ummadahaba. xadaaraad tiro badan baa dunida tegey, kuwa tiro badan baa dhismay, qaar badan baa xoogaystay oo dunida ka taliyey, qaar badan oo xoogaystaa ka tegey. asbaabi suquudku muxuu yihi? mid ka mid a ilaahay suuro inaga siiyey, bal tanoo qur'aan akhriyo. waa qur'aan marka, iyana waa qur'aan kale. ilaahay baa wuxuu qur'aanka ku tilmaamaya isagoo ka warramaya dad hore oo la daciifsaday oo la dulaystay oo laga xoog batay oo la laayay, haddana ilaahay uu ballan qaaday inuu u guuraynayo. ilaahay wuxuu leeyahay ina fircawna cala fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifata minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. آيات كان سورة أنقود مرة إلى يوحي سبحانه وتعالى فرعون وقوق وكبري dunidiina kooxa yaryar buu ka dhigay dadkii. kooxaha yaryar baa ilaahay leeyahay yastadcifu طaa'ifatan min kolba qaar buu tunka xanuujinaya, kuwa kalena way daawanayaan oo kooxa yaryar uu kala googooyey mujtamacii uu talinayay ama hoos imanayay. waa qaybqaybiyey baa ilaahay leeyahay awoodoodii. dabeetana yastadcifu طaa'ifatan min muxuu shiica uga dhigaya? maxaa dadka loo kala kaxaynaya? waxaa loo kala kaxaynayaa kaas tidhaahdo qaba inuu jilicsanaado si fudud aad u qaban kartid. yastadcifu طaa'ifatan minhum, daa'ifadan uu istidcaafsaday muxuu ku sameeyey? ilaahay wuxuu leeyahay daa'ifadatan wiilashay dhalaan wuu gowracayay, hablahoodana wuu reebayay. innahu kaana min almufsidiin baa ilahay yidhi. fircoon wuxuu ahaa mufsid min almufsidiin, kuwa wax fasahaadiya buu ahaa. fircawn dowladnimuu soo maray uu ku sheeganayo maxay? ana rabbukum alaclى maa calimtu lakum min ilaahin gayri. dadow anaa rabbigii saraa buu lahaa, ilaahaan aniga ahaynoo meesha jooga la garan maayo buu yidhi, idinma ogi. fircoonkii sidaa gaadhay, ilaahayna wuxuu leeyahy wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard. anna waxaan doonay baa ilahay yidhi. bal hadda u fiirso, fircoon isagu saasuu doonay. anna waxaan doonay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inaan ku manaysto, ku galladaysto kuwii dhulka lagu gumaystay, inaan wax ku galladaystaan doonay baa ilaahay leey, oo aan ka dhigay iyaga a'imada dunida ka talisa. a'ima fi lard, quwaadda iyo qiyaadada dunidu ay ka dambaysay meesha ka taliya inaan ka dhigo. waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyay wanajcaluhum alwaarihiin, sultadaba kuwa u hadha iyagu ka taliya meeshae dhaxla inaan ka dhigo. wanumakkina lahum fi lard, waxaan rabay baa ilaahay leeyay inaan dhulka makansiiyo, gacanta u geliyo, waa iyagu maamuli karaan. waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyahy
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون waxaan kaloo rabaa baa ilaahay yidhi inaan fircawn iyo wasiirkiisii ama ku-xigeenkiisii koowaad ee haamaan iyo waxay ciidan wateen oo dhan waxay iska ilaalinayeen inaan tusiyo baa ilaahay yidhi aayadka quraan u fiirsada ilaahay wuxuu leeyahay iyagu saasay ku tala galeen anna waxaan rabaa kuwan ay gumaysanayaan inaan soo qaado taariikhda inaan xagga kale u bedelo qolada tan fircoon iyo niman hurdo aan waxba iska ilaalinayn baa may waa niman soo jeeda iyagoo soo jeeda baa ilaahay leeyahay maca askartooda waxaan doonayaa waxa ay ka cabsanayaan inaan indhaha u saaro maxaa ilaahay sameeyey subxaana wa tacaala aayad ku xiga ilahay wuxuu tilmaamayaa nabiyullaahi muuse hooyadii oo umushay oo ilmi yaraa meelay geysa garan la oo naaska intay nuujiso dee sanqadhiisa isle oohintan iyo jiiqjiqda carruurta waa lagu soo sheegaya oo ciidankii oo dhamme ilmo yar daydayayo la gowraco ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi an irdiciih waxaa loo waxyooday islaantan oo la yidhi islaanay naaska nuuji haddaad u cabsatana badda ku tuur hadda maxay kala cabsanaysay geeri aduu dhig baddaa la yidhi qof badda la geeyey maxaad u malaynaysa mayaa wasaa-ishii noloshaba lala mara ilaahay wuxuu yidhi adigu nuuji haddaad u cabsatana badda iska dhig baa ilaahay yidhi ha ka warwarin anaa soo celinaya baa ilahay yidhi subxaana wa tacala isagoo weliba rasuuleh islaantii askartii iyo dee jawaasiistii iyo beliyo baaskii markay maqashay badday dhigtay ilmihii yaraa ilmihii xaggee la qabadsiiyey ilaahay wuxuu leeyahay faltaqatahu aalu fircawn ilaahay ma firdhinoo dunida dabadeeda meelaan fircoon iyo kooxdiisa joogin lama geynin ilaahay wuxuu yidhi fircoon iyo tolkiibaa qaatay si uu ugu noqdo cadow iyo mid ay ka murugoodaan kuu ilaahay ku bedelayay fircoon waxaa la yidhi fircoonow adigu koriyo gurigaaga ha ku koro fircoon ilmow gowracaa buu daydeeyey ilaahay islaantii guriga joogtu qalbigeeda bedelay oo tiri quratu cayni lii walak casaa an yanfacna natakhidahu walada kani waa ku ishayda iyo adiga ishaadu bay ku doogsatee war waa laga yaabaa inuu inanface kanaan ilmo ka dhigan maska haysana bay tidhi tii baa ilaahay fircoonna caqliga ka geliyey ilmuhu doonayay inuu dilo ilahay wuxuu yidhi adigu kori guriga boqortooyada ha ku koro fircoon wax ha siiyo ha socdo dabeetana biyadihi baa ilaahay fircoon ku halaagay waa qisa min alqisas qur-aanku uu tilmaamaya min altaariikh taarikhi alxadaaraadkii dunida soo maray ka mid ah oo ilaahay inoo tilmaamayo subxaanahu wa tacaala sida uu wax u bedelo iyo marka uu doono isagu inuu wax bedelayo muuse la yidhi kooxdan yar kaxee fircoon iyo kooxdiisii ka daba yimaadeen ay yidhahdeen innaa la mudrakuun layna soo gaadh uu ku jawaabaya kalaa ina macya rabbii sayahdiin walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul liladiina kafaruu ilahay wuxuu leeyay waxaad ku tidhaahdaa kuwan gaaloobay satuglabuun wa tuxsharuuna ilaa jahannama wa bi'sa almahaad war waa laydinka xoog badan doonaa ku dhaba ilahay leeyay subxaana wa tacaala waa laydinka xoog badan doonaa jahannamana weliba waa laydin keeni doonaa bal aayaddan kale u fiirso ilahay baa wuxuu leeyahy ina aladiina kafaruu ilaahay wuxuu yidhi yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha kuwa gaaloobay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala maal iyo hanti badan bay waxay ku bixin doonaan inay ilaahay dariiqiisana awdaan fasayunfiquunaha baa ilahay yidhi waa bixinayaan balaayin iyo trillions baa loo bixinayaa si loo joojiyo sawti alxaq inuu soo baxo laakiin maxaa ka dambaynaya ilaahay wuxuu yidhi uma takunu calayhim xasra uma yuglabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun waxaa la leeyahay uma takunu calayhim xasra waxa ay bixinayeen oo dhami waxay ku noqon doontaa maxay mid ay ka murugoodaan uma yuglabuun baa ilahay leeyay iyagoo waxaasoo hantiya bixiyey ayaa haddana laga xoog badan baa ilahay leeyay ayaa laga xoog badan doonaa waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala jahannamo dhankeeda ayaa loo soo xashrinaya la keeni doonaa waa nusuus qur'aana oo dhammaanteed tilmaamaysa nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh loo bushaaraynayo iyo dadka mu'miniinta ah oo loo sheegayo noloshu sida ay ku dambayn doonto haddaynu in yar eegno rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh
axaadiista uu ka tegey ee uu ku tilmaamayo in ummaddatan ay mar dambe guulaysan doonto. axaadiis badan ayaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka soo aroortay oo tilmaamaysa mas'aladatan. axaadiis badan oo nebigu uu kaga warramayo mustaqbalka soo socdaa sida u ekaan doono. axaadiistaasi imaamuna albaniy raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa la yidhahdo saxiixada waxa uu juska koowaad ku bilaabanaya, kitaabkiisoo dhan waxa uu ku bilaabanayaa baab uu u bixiyey mustaqbalka inuu islaamku leeyahay. almustaqbal inuu islaamku leeyahay baab ah ayuu ku bilaabanaya. baabkaasi wuxuu ku soo aroorinayaa axaadiis nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ka sugnaatay oo dhammaantood tilmaamaya in uu islaamku soo noqon doono, guulaysan doonana. axaadiistaa waxaa ka mida maalan cabdillaahi bni camr ibn alcaas oo fadhiya ee abu qubayla siduu sheegayo waxa la weydiiyey, cabdillaahu baa la yidhi nebigu labada magaalo tee la horfuranayaa buu yidhi. yacni waxaad mooddaa inuu xadiidku mustafiid iyo dadkao dhammi garanayaan. waxa la weydiinaya cabdillaahina waxa weeyaan labada magaalo ta la horfuranayo. cabdillahi wuxuu yidhi ii keena sanduuqaygii. sanduuq baa loo keenay xidhan oo xalaqaad leh. sanduuqii buu furay. markii uu sanduuqii furay ayuu wuxuu yidhi anigoo nebiga la jooga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo su-aashatan la weydiiyey, ayu lmadiinatayni tuftaxu awala, labada magaalo kee la furanaya anigoo nebiga la jooga ayaa la weydiiyey buu leeyahy. labada magaalo la sheegaya waa labadee? waa dowladdii romaniska lo odhan jiray labadii magaalo ee midna diinteeda looga telinayey, midna dowladnimadeeda looga telinayay. midi waa qustantiniya constable magaalada lo odhan jiray, waa magaalada istanbul hadda la yidhahdo ee turkiga caasimadda u ah. midna waa rumiya juz lawal hadduu yidhi, midna waa rumiya. rumiya waa rooma, caasimadan talyaaniga ee fatikaanku degan yahay waa taasi. waxa uu tilmaamayaa xadiidkaasi nebiga waxa la weydiiyey buu yidhi anigoo la fadhiya labadan magaalo iyomaa la horfuranaya. nebiga goormaa la weydiinayaa? wakti hore. islaamku markaa intuu xukumaa in yaroo jaziiratulcarab ka mid a, madiina iyo maka iyo in yaroo intaasi ah ayuu islaamku haystaa. dabeetana nebigu wuxuu ka warramayaa in labadaa caasimadood la furan doono. dabeetana waxaa la weydiinayaa labada teebaanu horfuranaynaa. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa horfuranaysaan qustantiniya, magaalada heraclas uu xukumo ee qustantiniya la yidhaahdo ayaa la furanaya. goorma la furtay? waxay idhahdaan 850 hijriyada ayaa la furtay. saxaabaddu maadaama ay rumaysnaayeen wacdigan uu nebigu sheegay, in badan bay isku dayeen iyagoo nool inay furtaan meesha tan, waayo nebigaa ballan qaadoo sheegay. saxaabada iminka istanbul ku aasan waxaa ka mid ah abi ayub alansaari baa ka mid ah. 20 saxaabaa la sheegaa oo istanbul dhinaceeda ku aasan, oo ah raggii usoo jihaad tagay ee salahaa wacdigii nebiga xaqiijiya oo furta meesha, oo dabeetana u suurtoobi weyday. saxaabadii markaa jiilu saxaaba ma furanin, jiilu taabiciin ma furanin, taabiciintii ma furanin. 8 qarni markay soo wareegtay iyo 50 sannadood wax ku dhadhowey ayaa waxaa furtay maxay? moxamed alfaatix, wiil yar oo dhowr iyo 20 jir ah. wiil yar oo dhowr iyo 20 jir ah ayaa furtay. 28 jir buu ahaa maalintu meesha furtay ciidanka u hoggaansanayay. moxamed alfaatix waktigaasuu furtay. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu sii sheegay in meesha tan la furan doono. waxaanu waxaa la horfurtay tee labada magaalo ta la horfuran doono. waxa xaqiiqo oo waxaynu haynaa hadda labadii magaalo tii la horfurtay baynu haynaa, oo waxaa la horfurtay tee qustantiniya la furtay. waxaa la horfurtay labadii magaalo markaasi qustantiniya. xaqiiqo waxaa siduu nebi moxamed sheegay inta kalena ay furmi doonto.
qaabkii ay doontaa ku furanta ama dadkeedu ha islaamaan ama xooga ku furanta ama waxay doontaa ku furanto roomana in islaamku ka talin doona xaqiiqa ah waa xadiiduu sheegay nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo uu ku tilmaamay inay mas'aladani dhici doonto waxaa axaadiista uu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka mid ah xadiidka kale saxiixu muslimka ku soo arooray ee uu nebigu leeyahy in allaha zawaa liya alard ilaahay baa dhulka iisoo ururiyey buu nebigu yidhi dabeetna kaanama t v laga tusay oo kale adduunka oo dhan baa lay tusay waxa lay tusay buu nebigu leeyahy dhulka oo dhan dabeetana islaamnimada tan wuxuu nebigu tilmaamayaa inay gaadhi doonto maa balaga alleyl waannahaar habeenka iyo maalintu intay gaadho inuu gaadhi doono waxa dhab ah habeen iyo maalini intay gaadho oo dhan inaan islaamku wada furanin soo maaha habeen iyo maalin intay gaadho dham waa maxay waa whole universe waa dunida oo dhan de inaanu weli islaamku wada gaadhin waxa uu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in islaamnimadu guri kastoo dunida ku yaalla inay geli doonto guri kasta oo dunida ku yaalla inay geli doonto bicizi casiiz inay ku geli doonto ama dulli inay ku geli doonto yacni dadkaas inay qaadan doonaan isagoo ama casiiz oo muslima ama isagoo liita inay gaadhi doonto guriga waxa uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tilmaamayaa axaadiis tiro badan oo mas'aladaasi wada tilmaamaysa walidalik ba waxaynu leenahay sheekh alalbaniy raxmat ullahi calayh kitaabkiisan lagu tilmaamo saxiixada waxa uu u baabaystayba oo baabka koowaad uu ku tilmaamaya 5 xadiid ugu yaraan oo 5tuba ka koowaad imaamu muslim uu warinayo oo ah kii fasiraya aayaddii qur'aan ee ahayd waladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin alxaqi liyudhirahu cala diini walaw kariha almushrikuun ka labaadna uu yahay xadiidkan hadda tilmaamaya in allaha zawa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa magharibaha wa ina ummatii sayablugu mulkaha maa zuwiya lii minha xadiidkan labaadna isna saxiixu muslimkaa wariyay uu nebigu leeyahy ilaahay baa dhulka ii kulmiyey oo islaamnimadii waxay gaadhi doontaa bar iyo galbeedba waa lay wada tusay intii lay tusay oo dhan bay gaadhi doontaa xadiidka saddexaad oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku tilmaami doono arrinkan islaamku inuu gaadhi doono maa balaga alleyl waannahaar habeen iyo maalimina intay gaadho oo guri dhagaxa iyo mid dhogora toona yacni guri magaalo ku yaal iyo mid baadiye ku yaal toona inaanu jiri doonin ilaa inay diintani geli doonto xadiidka afraad oo ah kii cabdillahi ibni camr ibn alcaas ee sheegaya labada magaalo ka la horfuran doono xadiidka shanaad oo ah in nebinimo ay hadda jirto dabeetana ilaahay uu rafcin doono dabeetana khilaafa calaa minhaaji nubuwa inay soo noqon doonto dabeetana ilaahay rafcin doono dabeetana mulk caduud ah ama boqortooyo adadag inay iman doonto dabeetana ilaahay rafcin doono dabeetana jabariya mulkun jabari ama dictatorship inuu islaamka ka talin doono dabeetana ilaahay rafcin doono mar kale inay soo noqon doontuu nebigu sheegaya khilaafa calaa minhaaji nubuwa uma sakat dabeetana nebigu waa amuse wixii kasii dambeeyey ma sheegin sheekh ilalbani raxmat ullahi caleyh wuxuu rajaxayaa khilaafa calaa minhaaji nubuwadan dambe inaan ahayn tii cahdigii cumar bin cabdilcasiis isagoo waxyaabo kale daliishanaya ee waa mid soo socota waxa uu nebigu sheegayaa axaadiis tiro badan oo masaladan ku wada saabsan waxaa ka mid ah xadiidkuu nebigu sheegayay inay yuhuud isdili doontaan dabeetana yuhuud aad jebin doontaan qur-aankana waa ka ilaahay tilmaamaya yuhuudda in dunida oo dhan laga soo ururin doono isugu soo ururi doonaan bayt almaqdis dabeetana in islaamka iyo iyagu ay ku dagaalami doonaan kadibna in yuhuud la jebin doono ayaa sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ku wada cad waxaan leenahay arrimahaasoo dhamme waa axaadiis iyo aayaad qur-aan ah oo dhammaantood tilmaamaya nolosha tani sida ay ku dambayn doonto iyo islaamka in weli fursadii u hadhay haddaynu masaa'ilkaas soo dhaafno waa maxay muqawamaadka aynu leenahay way xoojinayaan waxaa ka mid a baynu leenahay kow ummadda muslimka ah qaacida jirta odhanaysa way bukootaa ma dhimato way bukootaa taarikhda muncaطafaat taarikhiya buu leedahay muncaطafaadka taarikhdu yani meelahay ka laalaabatay graafku islaamigii sidaa uma socon mar kasta kor ma ahayn ee kor buu usoo socday hoos buu noqday kor buu soo socday hoos buu noqday kor buu soo socday laakiin lan yamuut ma dhinto xadaaraadkii hore dunida soo maray way jireen laakiin way dhinteen
waxay noqdeen un wax waraaqa laga akhriyo ama aathaar la qodo la arko ama xadaaradda islaamigu ma dhimanayso taariikhda hore cahdigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kor bay usoo kacday sanadkii tobnaad ee hijiriyada meelaha markuu nebigay uu dhintay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh reer baadiyihii iyo dadkii intii badnayd way ridoobeen 3 magaalo qudhaaba islaamka ku hadhay maka madiina iyo taa'if yani garaafku hoos buu u noqday abibakar iyo saxaabadii baa dib ugu darirtay muddo yar ayay dadkii islaamka kusoo wada celiyeen mantaqaday ka telinayeen haddana muddo yar bay dagaal la galeen persia iyo romanskii labadii dowladood ee weynaaba sanadkii 15 ee hijriyada waxay gaadhsiiyeen xad dowladna ay ka takhallusaan maca caasimadaheedii dowladna ay dhul badan ka qabsadaan sham iyo masar iyo dhulkan oo dhan ay ka qabsadaan muncaطafka taariikhigiisaas uu socday cahdu tatar baa la soo gaadhay ama haddaan idhaahno waxa la gaadhay cahdigii muslimiintu ay iskhilaaftay ee mucaawiye iyo cali isu dileen muddo ayaan islaamku wax fatxiya samaynin waxa la soo gaadhay cahdigii heshiiska ee muslimiintu ay dib u heshiisay mucaawiye madaxda laga dhigay 5 sannadood iyagoon wax futuuxaada samaynin ayaa haddana heshiiskii dambe islaamigii dhacay graafku haddana kor buu u kacay waxa la yimi haddana waqtigii tataarka islaamku hoos buu soo dhacay oo caasimadiisii bariga xigto dhanba waa la qabsaday dhul badan oo muslimiinta caynu jaaluud baa haddana dib loo jabiyey kor buu islaamku noqday waxa yimi ghazawaadkii galbeedkan ka imanayay oo duwalka yurub oo dhan ay isu tageen yani dowladaha waaweyn ee yurub jarmalka faransiiska iyo ingiriiska iyo waxay caga ku wataan oo dhan baa duulimaad ku soo qaaday muslimiinta waa crusadeska dagaaladii la odhan jiray ilaa iyabay qabsadeen maxay bayt almaqdis 9 sannadood bay haysteen haddana kadib ilaahay salaaxudiin ilayubi buu soo saaray graafkii islaamku dib buu u noqday macrakatu xatiin baa dhacday dib buu u qabsaday crusadeskii haddana mar dambay soo wadeen dagaalkii yurub oo dham isu soo raacday haddana ilaa iyo luwiskoodii 9aad ee francis ka telinayay isagoo maxbuusa qalcada masar lagu xidhoo la qabtay dib loo jabiyey graafkii dib buu haddana kor ugu kacay hoos buu haddana usoo noqday isticmaalkii baa yimo caalamulislaami intii ugu badnayd buu isticmaarsaday inuu dib u noqonayaana wax xaqiiqa jirta in leenahay inuu mar labaad dib u kici doonaana wax xaqiiqa jirto taariikhdu ka markhaati kacayso oo maxaa muujinaya kow waa dhici karta radka yaalla waxaa ka mida baynu leenahay waa ummad aanay marnaba dhimanin marjicay u noqonaysa yani umamku markay lumaan waxa koowaada ku dhaca waxa weeyaan meeshii ay u laabanayeen iyo halkii ay afkaarta ka qaadanayeen baa baaba'da islaamka ilaahay baa ballan qaaday waxyigan inuu ilaalinayo waa dhici kartaa dadku inuu muddo ka tago in khuraafo laska wadwato in la daciifo laakiin maadaama uu maxfuud yahay waxay ku filan tahay inay ummaddu dib ugu soo noqoto nila waa la hayaa astaantii iyo tilmaamtii iyo dariiqii la marayay wixii oo dhami waa yaalin inay kusoo noqoto unbaa loo baahan yahay waxaan leenahay maadaama uu kitaabku maxfuud yahay waa sax waa mar labaad ee ilaahay baa wuxuu ballan qaaday muslimiinta mar walba inay joogi doonto koox yar oo xaqa ku sugan oo aan marnaba iyadu dhiman doonin si ay ummadda qudwa ugu noqoto tusaale ay ugu noqoto oo waa kii nabigu xadiidka ku tilmaamayey ataa'ifa almansuura laa tazaal yani wuxuu nabigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inaanay marnaba ka zuuli doonin mujtamaca muslimka dhexdiisa daa'ifo xaqa ku sugan yeelin cid kastoo hoojisa ee iyadu xaqaasi uun haynaysa ilaa iyo muslimiintu ay dib ugu soo ururaan daa'ifadaasi oo daclada loo qabsado waxaa kuugu filan walidalik waxaan leenahay mar kasta oo islaamka dawaa'iftiisaasi ay xoogaysato waxay muuqanaysaa in islaamnimada dib loogu soo noqonayo waxaa kaaga filan in la tilmaamayo ixsaa'iyaadka caalamka maanta waxaa la leeyahay islaamku bay idhaahdeen waa the fastest growing religion in the world waa diinta ugu dheeraynaysa bay leeyihin marka la isku daro adyaanta dunida taallo oo dhan ee xagga kobaca marka laga eego waa diinta u dheeraynaysa bay leeyihin sidaa ayaa sheegaya sidaa waxaa sheegaya oo idinkaga filan bugga ay qorto si ay eedu world fact bookska bugga la yidhahdo ay soo saaraan si ayagu marba xaqaa'iqda caalamka iyagoo ka warramaya waxa ay ku sheegeen buggoodaas muslimiintu bay yidhahdeen qarniga kan markii la eego muddo 50 sanadooda bay yidhahdeen muslimku wuxuu koray 235% boqolkiiba 235% iyagoo iyaguna markaa wuxuu gaadhay 1.6 billion bay yidhahdeen haddii la dhinac dhiga bay yidhahdeen kristanku waxa uu kordhay 47 qudha 47% qolana waxay kortay maxay 235 boqolkiiba qolana waxay badatay maxay boqolkiiba 74 taasi waxa ay sheegaysaa bay leeyihin growthka iyo
tira badnida islaamku uu dadkiisu soo tiro badanayo. waxaa taa kasii daran bay leeyihin mujtamacaadka kale bay leeyihin tiradooda waxay ku xidhan tahay da'da weyn, marka way sii gaboobayaan. that's why Buchanan ninkii ka mid ahaa republicanka nin qaadadooda ka mid a wariyana caalamka ka jiray oo masiixiyiinta ka tirsan oo ahaa nimankii madaxweynenimada isu soo sharaxay waddanka maraykanka ee George Bush kii odayga la baratamayay waa ka buug qoray madadath baa magaciisi buug buu qoray kaga waramayo wacalaalayo uu leeyahay ninkii white man-ki iyo Europe iyo Christianity masiixiyada way dhimanaysaa way buu leeyahay marka la eego tiradii ugu badnayd baa ah buu leeyahay dadka hawlgabay caalamka kalena wuu soo socday. Maalan iyadu tiro badnaantan muslimiintu ay soo tiro badanayaan qura maahe waxa leeyahay duwalka muslimiinta maalan Algeria waxay leeyihiin dadka ku nool boqolkiiba 70 bay leeyihiin soo dajir buu ka yari, halka Europe dadka ku nool laga yaabo boqolkiiba 60 inuu 2010 pensionist noqon doono. wadana Europe kamid ah waxa la tilmaamaya marka 2010 taariikhdu ay marayso boqolkiiba 60 dadkeedu inuu pensionist noqonayo yaa u shaqeynaya la isweydiinaya. yani waxa weeyaan tirada dadku sida ay u kala badanayso. maalan tusiyo waxay yidhaahdaan Masar qarniga kan bilowgeedii waxay ahayd 5 milyan masaaridu. ingiriiskuna qarnigan bilowgiisii dunidu ka talinaya wuxuu ahaa 50 milyan. taariikhdu markay gaadho bay dhaheen 210ka masaaridu keligood waxay noqon doonaan bay dhaheen 100 milyan. ingiriiskuna markaasi wuxuu noqon doonaa bay leeyihiin hadduu u bato 65 milyan. qarni iyo 10 sano yani hal qarni in ka badan ingiriiska maxaa ku kordhay 15 milyan. masaaridana maxaa ku kordhay 95 milyan. taasi waxay tilmaamaysaa bay leeyihiin tirada bini aadamku dhanka ay u socoto. maalan bay leeyihiin 230 hadday taariikhdu gaadho carabtu waxay noqon doontaa bay leeyihiin 400 milyan, halka bay yidhahdeen 230 yuhuudda dunida joogta ay 15 milyan noqon doonto. waxay yidhahdeen carabtu hadday usuuliyiinteedu boqolkiiba 10 noqoto markaasi 40 milyan oo usuuli bay yeelan doonaan bay yidhahdeen. iyadoo bay yidhahdeen waa boqolkiiba 10 hadda markaad ku qadarto, iyadoo israa'iiliinta dunida joogto dhan ay noqon karaan bay leeyihiin 15 milyan ay noqon karaan. waxay tilmaamayaan tirada iyagaa badanaya bay leeyihiin, tayadana iyagaa badanaya oo dad dhalinyaro caafimaad qabo xooganayo. dee bini aadamkuna waxay dhahaan tharwada ugu qaalisane bini aadamku haysta waa human being. tharwada laysu Soomaalidu cayaar ma ahayn markii ay anaga ka tiro badanta isugu faanaysay. tiradu waa numberku waxbuu qabtaa, numberku wax badan buu taraa. walidalik waxay leeyihiin waa khatar aada u weyn. sidee loo daraaseeyaa? aragtida jirtaa waxay tahay maalan qadiyadda istaraatiijiga masalada ku saabsan baan maalan tilmaamaya si ay u fahamtaan culumtan istaraatiijiga iyo qaabka loogu dhaqmo. waxay arkeen in iyagu ay yaraanayaan dadka kalena badanayaan. waa xaqiiqa cilmiyo sugan. see loola dhaqmaa? waa xaqiiqa cilmiya. waayo France iyo Germany dagaalkii labaad ee dunida siday kaga baxeen qaar ka mid way sii yaraadeen. Faransiisku waxa la yidhahdaa dagaalkii labaad ee dunida intii uu ahaa iminku ka yariyay. yani waa umadan 50 sanadood waxba ku korin waxba dhalin may way dhaleen. dhibtu xaggee ka jirtaa? death rate iyo birth rate ka death rate ku badan yihiin. dadka dhintay iyo dadka dhasha dadka dhinta badan. si kale haddaynu tilmaamno wadano ka mid ah maalan Yurub waxay ku tilmaamayeen ixsaa'iyaad oranaya guur kasta oo dhaca laba qof kasta oo Yurubiyan oo iskursada bay dhahayn labadii bedelayay ma dhalaan. ixsaa'iyaadku waxay sheegayaan marka la isku celiyo average-ku waa 1.7. that means laba qof oo kasta haddii labadii bedelayaan ay dhalaynin maxaa dhacaya? tiradu dee way sii yaraanaysaa. 1.7 hadduu yahay halkii 2 laga rabay 2 waa inay 2 dhalaan hadday ahayd marka dadka la isku celceliyo tiradu markay noqoto 1.7 macnaheedu waxa weeyaan inuu sii yaraanayo. laakiin istaraatiijiyada rasmiga ay haystaan waa tii Thomas Malthus. ma maqasheen qadiyo la yidhahdo al-infijaar as-sukani qaraxa bini aadamnimada iyo yani dadka tirada badanaya iyo arsaaqda dunidu kuma fille dadku kuma fille hala yare. ma maqasheen? xagee ka timi? wax taariikhdeeda daraasiyey ma leedin? aragtidan waxaa bilaabay wadaad Kristan ah oo la odhan jiray Thomas Malthus. Thomas Malthus aragtidiisa tani waxay ku salaysnayd isagu nin Kristan oo Catholic baan rajaynaya inuu ahaa
waxa uu rumaysnaa aragtidiisii masiixiga ahayd ee ahayd inaan la guursani catholica waa taqaanin culammadu ma guursato sacanka maaha aragtidii ahayd inaan la guursan ayuu rabay inuu cileeyo oo sharxo oo uu rabo dunida inuu uga dhigo shay qurux leh oo diintu sheegtay inay dabeetna wuxuu yidhi bini aadamku wuu badanaya dunida arsaaqda taallana waa intii una badan mayso dhulku waa intii un hawadu waa intii un wax waliba waa intii marka xaggana lagama badanaya buu leeyay arsaaqdu ma badanayso xagga kanna basharkii baa ka badanaya buu leeyahy sidaa daraaddeed buu leeyahay handasada xisaabiga ahi isuma dhigantee mucaadaladu waxay sax noqonaysaa buu leeyahy kawaaristan dhacdaa buu leeyahy waa naxariis ilahay dadka u naxariisanayo wax allaaliya waxaa bele iyo dhulgariir iyo daad iyo waxaan dhacoo dhane dad lalaynaya buu yidhi waa naxariis ilaahay naxariisanayo la rabo in dadka arsaaqda la leekaysiiya buu leeyahy taasi waa mid wuxuu qabaa aragti odhanaysa guur la-aantu iyo cusubada iyo in dhalmada dib loo dhiga iyo caynkani inay tahay shay fiican diin ahaan waayo waxaad yaraynaysaa maxay in dadku arsaaqda ku filaato aragtidaas waa aragtiday ku salaysan tahay in dadka la yareeyo laakiin xaqiiqada jirtaa waxaynu leenahay markay arkeen dadyagan culumtan daraaseeyaa in laga badanayo muxuu noqon karaa marka qadiyadda istraatiijiga ay qaadanayaan waa inuu noqdaa dadkooda in la tashjiiciyo sidii wax loo dhali lahaa kuwa kale in la cadaadiyo sidii maxay ay dhasha u yarayn lahaayeen arsaaqda kuma filla miyay jirtaa maya taasi waa xaqiiqa aan jirin cilmiyanna uma jirto diin ahaanna uma jirto diin ahaan uma jirto ilahay dhulka markuu ka warramaya abuurkiisa muxuu yidhi waqadara fiiha aqwaataha baa ilahay yidhi markuu ilahay tilmaamay dhulka iyo suu abuuray ilahay wuxuu yihi waqadara fiiha aqwaataha ilaahay baa ku jaangooyey wixii la cuni lahaa ilahay baa ku jaangooyey subxaana wa tacaala ugu talagalay baa shaku intuu inta ku nool yahayna ku fillaato uu cuno oo uu liqi karo waa xaqiiqa cilmiya mar raba mawduuca inaan ka warramo waayo mawduucan socdaa waa meel kale lakiin tusaalaan idin siinaya qudhaha tusaale muxuu yahay mathalan marka uu basharku soo bataba waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay futuuxaad cilmiyo tiro badan lagu furayo mathalan waxaa laga yaabaa waagii hore hectarka beerta ah ka soo qaad waa tusaale in waxaa ka soo baxa 100 qof ku noolaan jirtay markii basharku sii bataba ilaahay futuuxaad cilmiyo u furaa ama fertilizer isan noqoto ama wax cusub oo lagu sameeyaa noqoto waxaa laga yaabaa iminka hectarkii in halkii 100 qof awal ay quudan jireen 1000 qof laga quudiyo dhulkii ma kordhin waa intiisii laakiin ilaahay wuxuu insaanka baray maxay qaab uu isagu intaajkiisa u samayn karo ha noqoto ama genetics iyo waxaan iminka la wadwadayo waa nawciyaad un baynu leenahay cilmiga iyo basharka kobiciisa ilaahay u wada socodsiiyey walidalik dhulku isagoo aan korinayo intiisiiya ayaa ama qaab dib loogu fertilize gareeyo ama qaab dib loogu hagaajiyo ama qaab wax badan laga soo saari karo baa ilahay basharka sii baraa dabeetana wuu baran karaa istraatiijiyada wasku uu haystaa waxa weeyaan dadka kale in la yareeyo shirikaadka ugu waaweyn ee galbeedka ka mid ah ayaa waxay finance gareeyaan mathalan brazil waxa laaliya wixii gabadh iyo nin la dhufaanay hal shirkad baa bixisay kharashkeedii waddanada qaarkood 49 milyan oo qof bay dhufaaneen dadku dhadhow baa la tilmaamaa hal shirkad oo qura kharashka bixinaysa waa il xagga kanna haddaad wax dhasho lacag baad leedahay sooma hadde yurubdee dhalmada iyo hooyada iyo ilmaha iyo waatan inta lasii badiyay waddanada qaarkood islaamtu sanad bay iska fadhigi kartaa mushaharkeedii ay toos isaga qaadan kartaa waddanada qaarkood waxaa lagu sii daray maxay xataa odayguna hala umulo baa la yidhi si umusha loo kordhiyo oo lacagta odayga waddanada qaarkood isna bil fasaxa leeyahay islaamtu markaa umusho si uu isna kharashka u qaadan karo waxaa la kordhiyey yani lacagayowga iyo benefitska iyo child benefitka iyo wixii laysi siinaya waxaas oo dhan kullu dalik waa tashjiic la siinaya maxay in dadkoodu dhalaan waxaan leenahay marka aynu soo koobno dadka muslimiinta ahi way badanayaan badniduna waa shay sheegaya mustaqbalka cidda uu yeelan doono waxa yani tira badnidan sheegaya ee ah 235% in 50 years inuu islaamku ku kordhay waa si ay World Fact Book qoraya waxaan leenahay waxyaabaha kale khayrka sheegaya waxa kamid ah in leenahay mustaqbalku uu fiicnaan doona باذن الله تعالى بعث الحركات الإسلامية islaamnimo ku noqoshadatan oo waa maxay dadka mu'miniinta ahi islaamnimadoodii way ku soo noqonayaan waxa sii badanaya mar kastaba dadka multazimiinta ee diintoodii u soo noqonaya mar kastoo daa'iradaasi ay sii ballaadhato maxaa kordhaya mustaqbalkii uu soo dhow yahay
ولذلك ما أنت واحد هذا مثلا يجوا مركز إحصائيات كسمينة واحد هذا إحصائيات كمسلم كي كريستيان كبيد هذين إحصائيات كي هو قديم قام كورمية إحصائيات كلفتي استصال الله سمع الله سكوا غلطاي لكن إحصائيات كقديم كهذا سيدو ذا وقت واحد مسلم كي كريستيان كابضن بيده هين دين هان ضد كهيستا لكن بيده هين دقان هان ضد كهيستا أنت أصلا مسلم كابضن يعني ما كلا يسوق ما يو كريستيان ككنيسة ضتجه دين تيسي ملتزم كقوة متدين كا إيوه مسلم كمساجد كتجاه محي متدين كا وحين أكلنا إن إسلام كيو نقشة دي سايسات رب الناس يدو دل يدع يباب يحرق وهو البلوغ هيو هذا نوع شيء بدنا يعني ولي بدنا شيء قرا ما هي وحين لأن النقشة ده كتاب كيا سنة هي علم الدين تنوصيفه فيوصيف بدنا يعني على جيا بعده قفلوا يدين كده كم دين تينا بدنا نقرأ مثلا الصومالية صدق سنة كهر روح على جيا بمساجد مركز تكتو إن دقت جيسون أريال عقله إن عيبه هيدن دالين يروح مساجد كشري لارك ما أنت روح على جيا بمساجد ده مركز تكتو دين تينا نهار فرد دبا دور نبى واحد عقله يدخل يعني دد شبابه ترى بدن لين الدين قاته وحي موجنا يساكله على جيا بالصومالية واجه هرينا دركتو مقالة دن أنت مساجد كنت على هل مسجدون oday sheekh oo culimadii hore kamid ah kitaabku akhri jiray inta kale iska baran maanta waxa laga yaabaa inaad aragto masjid kasta oo duruus iyo cilmiga kitaabu ka socdo macnaheedu waxa weeyaan markasta oo cilmiga islaamiga uu bato iltizaamkiina uu badanaya dadkiina diintii way soo noqonayaan markasta oo jahligu batana bidcada iyo khuraafada iyo fooxiska tirabata idan waxaan leenahay islaamnimadii way soo kordhaysaa waxaan kaloo leenahay waxa iyana dhinac socda taariyat al-jahiliya reer galbeedkii waqti waxa jirtay dadka dunida ku nool oo dhan ay maskaxda ka hayeen dadku aragtidoodu ay qaali laahay wax walba iyaga la daba socday laakiin waxaad moodaa taasina inay ka dumur inay soo gaagaabanayso ceebtoodina inay soo muuqanayso dad badan oo la khushuucsanaana iminka inaanay u arkaynin mabda'a kan mid la khushuuca inuu yahay ee naqdigu inuu tiro badan yahay waayo galbeedku xadaaradiisu way foorartaa hadda way taagantay laakiin waxaan leenahay dawr suquut baa bilaabmay daadagay bilowday mustafa maaha cidda idin leh waa khubaradooda iyagaan ka naqlinaynaa yani cidda le daadagay bilowday iyaga ayaan ka naqlinaynaa marka la eega bay leeyihiin nudumkii iqtisaadiga ahaa iyo wararka jira iyo qaabka u socoto marka la eego bulshada iyo akhlaaqiyaadkeeda iyo dhaqankeeda iyo qaabka u socoto marka la eego mesela waxay leeyihiin intixaarkii baa batay dadkii baa noloshii nacay isdilkii baa batay weliba bay leeyihiin isdilku wuxuu ku badan yahay tabaqaadka sare tabaqaadka hantiilayda ee lacagta haysata ayuu ku badan yahay waxaa macruufa waddanada qaar ka mid ah in markii tabaqada dilkeedii uu batay in la yidhi war bal waxan hala daraaseeyo وهلا هو بيوم حي sababta ka dambaysa dabeetana ixda duwal ayaa waxay fureen waxay yiraahdeen si aynu u ogaano waxan dadku isu dilayo waayo wax marka la gartaaba la daweyn kara dawladdu bay yiraahdeen ha furto meel la isku dilo meesha la isku dilo bay yiraahdeen niman khubara ah la geeyo oo dadka la hadlo oo qanciyo oo ka dhaadhiciyo in la istilin koow ha la geeyo bay leen kuwa shaneer waraaqana ha la dhigo oo qofku sababtu isu dilayo da'da uu yahay waxa uu ka shaqeyn jiray si loo ogaado bal tabaqaadka dilku ugu badan yahay kuwa ay yihiin si loo ogaado asbaabta bal keenaysa in dadku is dilo sababaha ugu badan loo garto si loo ogaado qadaayadkan dhaqaalaha iyo nin deyntan oo dhaqaalaha lagu lahaa ama wax laama caynkan lahaa accountiyadii wixii inaanu is dilin una saaxada ka bixine qadaayadkan oo dhan si loo khaliso hal la sameeyo baa la yidhi isla markaa bay dhahaan cidda ku qanacda inuu ka noqon waayana ha loo fudaydiyo وقاب يرفضت هلو ديلو دولتي با فرتay meeshii dadkii baa ogaaday wadankiiba bahalka meeshii raydun baa ku yuu gala amar waxa lagu bixiyay degdeg loo xidho sideeda in lagu joojiyo yani waxaad ka garan kartaa maxaa ka dhigay mesela Mareykanka oo kale sanadihii soo maray sanad kamida buugii ugu caansanaa the bestseller book inuu noqdo final exit waa buug ka warramaya sida la isu dilo yani ummadii inay u baahato oo dadku oo dhan wada akhriyo buugga sida la isu dilo baaha jirta de ilaa waxaan loo baahnay dadku ma akhriye baaha jirta sheegaysa buugga kan inuu soo interested inuu ku yahay dadka dhexdooda halena waxa batay idmaankii iyo xashid cabkii iyo khamri cabkii iyo waxa kan ilaa ay imka ay ku socoto trendku wuxuu u socdaa in la ogolaado
waxaan filaya waddankiina kan lightku waa iska imkaba waa masmuux kokainka fudud iyo waxyaabaha light drugska waxay u tilmaamaan waa trend socda oo ah in la aqbalo bulshadu markay kaa badato axsaabtu dee way cod waayeysaa wax way waayeysaa waa inay mujtamaca la socotaa dhanka loo badanya waa inay jirtaa dee waa trend socda oo bilowgiisii la hayo in la aqbalayo kuwa yaryar aakhirkana maca kuwa waaweyn la aqbali doono waa trend socda in la aqbalo intixaarki waddankiina joogtaan wuxuu aqbalay maxay dhakhtarku inuu dadka dili karo ayuu baarlamaankiina ogolaado sababtu waa maxay qof dhan oo dawladdu iyo mujtamacu kharash uu ku bixiyey si bini aadamka u badbaadiyo ayaa waxa xirfad looga dhigaya inuu dilo hadda waa shaqadiiba xagga kale loo jeediyey shaqada dhakhtarnimada maxay ahayd in dad la badbaadiyo shaqada dhakhtarnimada noocaas ahayd hadday noqoto ka warran in dadka la dilo waa something else waa wax cusub laakiin trendkaasi isna wuu socdaa waddanada qaarkood lawful baa laga dhigay iyadoo shuruuda lagu xidhay waddanada qaarkoodna lawful maaha laakiin dhakhtarradu way sameeyaan wuu iska socdaa dawladuna way ka indhaqarsataa walidalik baad arki doontaa iyadoo laleeyahay dhakhtar hebel maalmo dhaweed dhakhtar ingiriisi soomaalida arki inuu lahaa 320 qof baa loo haystaa inuu caynkanoo iminka waa iska wada jirta waxaasi ee uun isha in laga aan waxba lasii qodqodin oo waxaan lasii baadhbaadhin ayaa meesha taalla khawaa ruuxiya baa jira khawaa ruuxigu waa maxay baahidii iimaaneed baa la waayey walidalik baad arkaysaa mid dhowr la baxay mid shaydaan caabuday mid buudiis noqday mid lo-da caabuday waa maxay markaad aragto nin reer Yurub oo cilmi barto caynkan oo iminka aqbalay inuu saca caabudo how is it saykulata yani weyn baahiye meesha tan jirta meel daloosho dadka kan oo materialkii oo dhami buuxin waaye waynu jira markaad aragto professor dhan oo qaatay in lo-da la caabudo shalayna professorkii jaacadda joogay ahaa markaad aragto professor dhan oo aqbalay in shaytaanka la caabudo ama markaad aragto adyaanta tirada badan iyo khusucbalaadka waska ku soo badan markaad aragto waxaa la mid oo tilmaamaya bay leeyihiin markaad aragto waalida iyo amraadda casabaadka sii tira badanaysa amraadda caqliga ku dhacday iyo waalida iyo waxaasi maraykan oo kale dhakhaatiirta ugu badani waa psychiatriska iyo waxaan maskaxda ku shaqale musixaadka iyo waxaasi meel kastaba waa buuxa waxa kaaga filan marka aad aragto inhiyaar iqtisaadiga soo socda burburka dhaqaale ee haystaa burburka dhaqaale ee haystaa muddaa laga warramayay maalan hadda markaan soo socday maktabadiina tan waxaan ka helay cinwaanka muxaadarada loo bixiye kitaab yaroo leh mubashiraat fi zaman alistidcaaf haddaan soo helay markaan soo socday waxyaabaha uu tilmaamayo waxaa ka mid ah 3 buug buu sheegaya oo macruuf ah oo 3duba ay ka digayaan burburkan dhaqaale iyo meesha lagu socdo midi waa the great reckoning alxisaab alkabiir baa la yidhaha James Dale Davidson iyo Lord William Rees baa qoray 1993 waxa ay ka warramayaan مثلا عناوينta kitaabka cinwaan ka mid wuxuu sheegaya America follows in Britain's footsteps bay yidhahdeen boqortooyadii ingiriisku markay calankeedu soo dhacayay jidkay haysay buu imka maraykanku hayaabay leeyahay waan maraykaneedna jidkii boqortooyada maraykan markay calaamada soo laalaabanaysa ay haysay ayuu maraykanku hayaabay leeyahay buugga labaad مثلا waxa la yiraahdaa head to head the coming battle among Japan, Europe and America Lester Throon la yiraahdo qoray 1992 عناوينta buugga ku qoran waxa kamid ah topic uu bixiyay the great wall is down derbigii weyna wuu dhacay dhaqaalaha maraykan buu ka warramaya markaas hadda ma aha iminka inta shirkadkan iyo waxaan iflaaskan iyo maaha waa 92gii baan idin leeyahay buugga waqtiga la qoray ka horana waa 93gii Paul Kennedy مثلا wuxuu qoray buug la yiraahdo nushu wa suqut al-quwa al-udma kobaca iyo burburka xoogaga waaweyn isna 1993kii buu qoray wuxuu leeyahay kobaca waxyaabaha keena waxa kamid ah quwa askariya li tahqiiq al-amn in dawladu yeeshaan xoog military si amniga loo sugi karo iyo buu yiri quwa iqtisaadiya labadaas oo la isku daraa waxay tilmaamaan waa aragtidiisa mustaqbal zaahira buu leeyahay laakiin waxa muuqata buu leeyahay maraykanku inuu waayo quwa iqtisaadiya waxa kamid ah مثلا buugga afraad al-iflas bankruptcy 1995 waa buug ku bushaareynaya 1995 inuu maraykanku kici doono waxaana la qoray 1993 laba sano kadib bay qabanayaan bay leeyihiin waa Gerald Swinson iyo Harry Vigi ninkii la oran jiray buugga qoreen laba sanadood kadib baan la filayaa buu leeyahay inuu kaco buuggu waa laba qaybood buu qaybsay qayb wuxuu leeyahay waa nihaaya casr al-quwa al-amrikiya xoog weynidii maraykaneed casriga sii dhamaanayso weeyaan casriga buu leeyahay qaybtiisa kalena wuxuu kaga warramaya tafaadi al-kaaritha balada saynu isaga badbaadinaa
hobashadii waa muuqataa buu leeya la dhacye inaynu dam wada nidhaahno sidee baynu isaga qabanaa. bugaagtani waxay tilmaamayaan statistics bay sheegayaan. maalan cajziga iqtisaadiga dawladda haysta, cajziga waxaa la yidhahdaa waa dawladdu expensifiskay samaynayso iyo wax soo saarkeediiba mar kasta waxa badan expensifiskeydi. taa macnaheedi waxa weyaan dawladdu inay dayn ku kabto. wuxuu sawirayaa 1980 something ilaa iyo 2000 ayuu table qorayaa ah cajsigay dawladdu galaysa iyo siduu usii socdo. markaasu wuxuu tilmaamaya inay aasan tahay dawladda Maraykan dayn daraaddeed. wuxuu sawirayaa maalan wuxuu leeyahay haddii 100 million 100 bilyan hadday qaadato buu leeyahay sanadkiiba 10 bilyanna interest looga qaado. wuxuu sawirayaa muddo yar oo aan dhowr sannadoodaba inay trillions gaadhayso cajsigaas inaananu marnaba soconayn. wuxuu sheegayaa say usii socoto. nimankani bugaagta waxay qoreen sagaashanadii 92 93 somewhat like that. kuwa ka horreeyey caalam Francia ama mid Almania ama culamo badan qaar hore ay qoreen baa jira oo ina taariikhda ka horreysay la qoray. nowadaysna uma baahnidin deyna buugaag. baabkan waxaan isaga soo koobaya dee iclaankaaba ka dheeraynayo bugaagtii iyo researcheska wixii ku qoraa. yani awal waxay ahayd saadaalin iyo research iyo waxa ay dee culamadii funuuntan ku takhasustay ay ka warramaysay. laakiin iminka waxa ka dheeraynaya ma maxay warbaahinta warkeeda waa baryaba la leeyahay waxa kacay tan baa kacday, shirkad weyn oo caynkana baa kacday, ceebtan baa soo baxday. yani ceebaha socda oo sheegaya xad transparency-ga accountisku dhammaantiiba uu lumay. in shirkadii 20 sannadood soo socda waxay faa'iidi doontaa. waaxid professoradii Enron loo diray ka mid ah ayaa wuxuu sheegayaa, Enron maaha waxa filayaa in welcome ahay, wuxuu leeyahay welcome waxay sheegatay iyo Enron ma kala huba hadda daakirada ay khaldaysaan filaya 20 sannadood soo socda waxay faa'iidi lahayd ayay sanad qura inay faa'iiday ku sheegatay buu leeyahay. ceebaha soo baxay yani waxaan la soo iclaaminayo waraaqahan badan ee la qorayaaba ma jiro. dadkan uun hantiilayda ee hantida gashaday unbaa waraaq beena loo dhiba la yidhahda sanadkan 4 bilyan baynu faa'iidnay iyo intana bilyan baynu faa'iidnay. tii lafteedii baad moodaa inay imanka dib usii garanayso. idan inhiyaad iqtisaadiya quwa cudmaa wuu yihi xaqiiqa weeyaan taasi marka loo eego military powerka uu leeyahy. weli iqtisaadiyaadka caalamka kuwa hogaaminayuu ku jira. laakiin trendkii ufuulka waxaa bilaabmay nuqtatul ufuul daadegii iyo dhaadhicii baa bilaabmay. waxaan leenahay nolosha kama mid aha. nin nimankaa ka midaba wuxuu leeyahay waxaa muuqata buu yidhi in Marx waxaa caddaatay buu yihi rasuul beenaala aynu ahaa oo cilmaani ah. yani Marx wixii uu sheegayay buu leeyahay dadka uu waxyooday waxba kama sugna. waxaa kaloo muuqata buu leeyahay islaamka iyo adyaantu inay yihiin wax sugan oo soo koraya. maanta buu yidhi atbaacda Muxamed baa waxay ka badan tahay buu yidhi atbaacdii Marx weli. yani marxismku waxa la cidina isma lahayn 20 sano ka hor Marx ba dumaya eediyadiya islaha cidina dunida ma saadaalin. laakiin within 10 years ayaa akbar quwa cudma waliba marka lagu xisaabtamo quwada taqliidiga dunida ugu xoog badneed 10 sannadood baa dunida lagaga waayay ay ka baxda. maantana yatakafafuun dadka dunida saddexaad ee waxbariyay ku jirta. umamku markaasi hadduu ufuulku ku bilaabmo si yar bay u dumaan. waxaan leeyahay waxaa muuqda mubashiraad sheegaya in uu islaamku soo socdo waxaan kalena ay ufuul ku sii jiraan. waxaan ku koobayaa laakiin caalamku ibtilaa'aat baa jira. anigoo mutafaa'il oo caynkaasi rumaysan haddana habeen iyo maalin wax iskagama samaysman inta badan. sunnada jaarigii waxayna tusinaysaa umamka in la itixaamo ilaa iyo intay uga bislaanayaan inay meesha tan gaadhaan. waxaa ii muuqata kolley anu sidaan u arko iyo dad badan oo kale oo gaal iyo muslimba leba say u arkaan inuu islaamkuna soo socdo xadaaraad maanta xoog badanina inay hoos u noqonayaan. laakiin mid ogsoonow qawaacid sunanka ilaahiga ka mid ah baa u baahan inaad fahamto. qawaaciddaasi waxaa ka mid ah ilaahay waxa uu qur-aanka ku tilmaamaya qolada gaalowday walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun. waa qaacida walaa yaxsabana aladiina walaa taxsabana aladiina walaa baqiro.
ha u malaynin ama yay u malaynin kuwa gaaloobay baa ilaahay leeyahy nafahoodu inay iga baxsan karayaan. ilahay markaasuu leeyay innahum laa yucjizuun, ku tilmaamaya in loo jumla ismiya adawaatu tawkiid oo ina ana lagu sii daray, marnaba ima cagsi geli karaan baa ilahay leeyahy. taasi waa qaacida labaad baa jirto oo ah ilahay wuxuu yidhi waan u kaadinayaa si imtixaanka ay u dhammaystirtaan, oo adduunka kani waa daaru imtixaan. aayaad badan oo qur-aan a ilahay ku tilmaamaya in loo kaadinayo, laakiin waxaa ilaahay leeyahy walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu isma walahum cadaabun muhiin. yay u malaynin baa ilahay leeyahy kuwa gaaloobay kaadinta aan u yaro kaadiyey in khayr ugu jiro oo wanaagooda dartood inaan ugu kaadiyey yay moodin baa ilahay leeyahy. waxaan ugu talagalay baa ilaahay yidhi inay dembiga dhammaystirtaan si ay cadaabka booskooda uga galaan. booskii naareeda loogu talagalay ragga barh baan gaadhina laleeyahay dunuubta kordhi aada gaadhid aada jahanamo ka qaadan lahayd. taasina waa qaacida labaad oo ilaahay tilmaamayo. dhanka mu'miniinta sunnatulimhaalku waxay sheegaysaa sunnatulibtilaa rasmiya inay mu'minkana u tahay, oo ilahay wuxuu leeyahy maa kana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib. ilaahay kaga tegi maayo dadka mu'miniinta sidan aad tihiin baa ilahay yidhi, ilaa iyo ilaahay inuu idin itixaamo oo kuwiina xunxun iyo kuwiina san la kala saaro. guusha dadku waa wada fariid, lama kala garto. soomaalidu maxay dhahaan guul darradaa goblana bay dhaheen. guul haddii la helo nin waliba xaggu kaga dhuftu sheegtaa, oo anigii markay halkaa maraysay halkaa kala soo gaadho waa saasay u dhacday. laakiin soomaalidu waxay dhahaan guul darra waa goblano, iyadu inaan ma dhasha baa la dhaha. nin yidhahdo anaa jabka keenay u iska yari, nin waliba qooda kale u saaraa u ka taga. ilahay wuxuu leeyahy liyamiiza alkhabiisa min aطayib, in laydinka saaro kuwiina xun iyo kuwiina wanaagsan. wamaa kana allahu liyuطlicakum cala algayb, kala saarkiinana ilahay uguma talagelin in haybka laydin tusiyo, laakiin waxaa la rabaa in laydinku kala saaro fitanka iyo imtixaanka iyo ibtilaa'aadkaasi dhacaya. kiina iimaankiisu xoogayay, kiina iska nifaaqee dadkan dhex socday, kuwiina ducafaa ul iimaankiiyo marka gaalku u hanjabo markiiba jabaya, kuwiina ilaah iyo rasuulkiisa rumaysanay alla ku kalsoon ee rumaysan waxaan alla u qorin inaanay ku dhacaynin, cid aan alla jabinina inaana jabin. in la kala saaro ayaan imtixaanka u keenay baa ilahay leeyahy. faaaminuu billahi warasulih wain tu'minuu watataquu falakum ajrun cadiim. waxaa alla tilmaamaya walow shaaa allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd. ilahay hadduu doonayo markiiba waa idiin gargaari lahaa ilbriqsi, laakiin ilahay wuxuu doonaya inuu isku keeno itixaamo. waxaa kaloo alla uu tilmaamaya wayattakhida minkum shuhadaa. waxaa kaloo ka mid ah oo imtilaagani wuu dhacayaa baa ilahay yidhi badh idinka midana in la gaadhsiiyo boos janneed oo sare oo ay xaq mutaan, oo shahiidku waa daraja culya min darajaati aljanna. wain yuqaatiluukum dee nabadda laguma helo, shahaado meel iska fadhidaa ma jirto, ee waa qof u halgamay waxa uu rumaysay oo u geeriyooday. kuwaasna waxay imanayaan baa ilahay leeyahy imtixaanaadkani markay dhacaan iyo waxa kan ayaa darajatu shuhadaa kuwa gaadhayaan ay yimaadaan. natiijaduna waxay tahay ba alla leeyahy natiijo xatmiyaa jirta. natiijadu waxa weeyaan lan yadurukum ilaa adaa wain yuqaatiluukum liyuwalluukum aladbaar uma laa yunsaruun. lan yadurukum ilaa adaa, waxoogaa dhiba mooyaane wax kale laydinma gaadhsiin karaa ilahay yidhi. hadday idinla diriraanna iyaga baa dhabar jeedin oo jabi doona, loomana hiilin doona baa ilahay yidhi. in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasra uma yuglabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun. natiijaduna waa tan. gaalada ilahay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa'i lacallahum yatadaracuun. ummaday soo diray baa ilahay yidhi rusul, dabeetana xanuujis iyo dhib iyo wax kasta waa lagu qabtay, bal inayna ilaahay usoo noqdaan oo gartaan. waxay yidhaahdaan dhibaatooyinku waa munabahaat bay yidhaahdeen. umamka xayiga ah munabah bay yidhi, dadka nool bay yidhaahdaan dhibtu caqli bay ku kordhisaa, oo waxay keentaa in la xisaabtamo maxaa dhacay, maxaa waxaan u yimaaday, see waxa kan looga baxaa. ducafaa ilqowmkana way quusisaa, kuwa liitaana waa iska quustaa. walidalik ayaa ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qolada gaaleed mashaakil baan ku qabtaa, bal inayna ilaahay usoo noqdaan. ee marka la rabo inay ilaahay u noqo falowlaa id ja'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum. markii dhibtu timi baa ilaahay leeyahy ilaahay sumay dhul dhigin ee qalbi engeg kale ka soo qaadeen baa ilahay yidhi wazayana lahum ashayطaanu maa kanuu yacmaluun.
قرنكي هراي سمينين باب ولي الشيطان سيقرحيا يويس لسي مدح بودين با إلهي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء markay ilaabaan ba ilaahay yiri wixii aan ku waaniyay oo dhan markay ka tagaan waliba waxaan u sii faraba ilaahay yiri albaab kasta waan u sii ballaqa wasi guuleystaan albaab badan bay helaan ba ilaahay leey hatta idha farihu bima utu ila ay kibraan oo waxaan ay heleen ay ku kibir dhaafaan ba ilaahay yiri akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun markaasaan qabtaa ba ilaahay yiri sawaaba iyaga quus taagan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala idan hahiya sunanka uu quraanku tilmaamayo duu gaal yahay دو مسلم يهي دو منافق يهي دو مؤمن يهي سنن كم باجرة إذن ابتلاءنا وجرية يهين دق الله يتحامل دونه سيدا أوجي waxaan ku soo koobayaa dinkooyin badan fadhiyay mubashiraadku way tiro badan yihiin quraan iyo xadiis sheegaya waa la helaya taariikhda bini aadamka iyo daraasadeeda wax ka tilmaamaya waa la helaya waaqaca nololeed aynu ku noolahay wax mubashiraad oo tilmaamaya way jiraan لكن هدنا وحن لنا مع كل ذلك متفائل باني waxaan rumaysannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gacantiisa wax waliba ku jiraan mustaqbal fiican inuu nolosha ka soo socdo laakiin maca kulli dalik waxaan kaloo leenahay insaanku muslimka ah waxaa laga rabaa camal iyo binaa iyo dhismo iyo horumar iyo waxaan wixii xaqiijin lahaa intuu fadhiisto meel inuu yidhaahdo ha way imanaysaa ilaahay waa ballan qaado way imanaysaa ilaahay sidaa kuma ballan qaaday waxaa muhimkii wuxuu yahay qof kastoo muslima inuu shaqeeyo oo sida uu nabigu leeyahay war hadday gacantaada ku jirto baa nabigu yiri geed timireed yar oo aad awoodi karto inaad beerto intaanay qiyaamuhu dhicin beer buu nabigu yiri salawaatullaahi wasalaamu calayh idan dadka muuminiinta ah waxaa korkooda saaran si ay u xaqiijiyaan mubashiraadkan uu nabigu sheegaya salawaatullaahi wasalaamu calayh in ay u halgamaan oo nolosha cid aan halgaminin nolol ma hesho adduunka cid walba waxa looga baahan yahay halgan حتى معجزات يدعي غير بنو إسرائيل markii ilaahay badbaadinayay iyagaan wax badan qabanin ba hadana ilaahay wuxuu ku yiri badda markii loo kala dilaacinayay baddan idin kala dilaaciyay iska maro oo qora ilaahay ma oran ee waxa lagu yiri Muuse anadrib bi'asaka al-bahr war balowsha badda ku dhufo kana ma leeyahay nooc min al-amal samee usha badda ku dhufo baa leeyahay natiijada ilaahay uu tala saaray isaga kala goyn doone ulbu bad ku dhuftay ilaahay ba kala dilaaciyay waliday bad ma kala dilaacay soo garanaysaa dabeetana way mareen kuwii kalena ilaahay ku halay waxaan uga jeedaa mubashiraad sheegnay mubashiraadkan waxaan u sheegayaa ama walaaladeen ay ugu talagaleen inaan u sheego jabka warbaahintu idinku haysto inaan kaga bogsiiyo laakiin inaan idin tilmaamo xaqiiqa waxa aan u baahnayn in la iska indhasaabo noloshu inay camal iyo horumar u baahan tahay xataa ilaahay gacantiisa waxa ku jira waxay u baahan tahay cibaado iyo baryo badan iyo ilaahay la soo dhigoo la raaco oo la weydiisto إلهي وبيده الملك واحد كستي سيجي عنتي سكوتشرا لكن واحد إلهي جعنتي سكوتشرا سأدوها الشوا حضوبها هنطي طريق إلهي كيلو صامرين أو صامرت وإيمانية عبادية عمل صالحة هي الرومين للرومينية وحي النصوص إلهي الرسول في السيولي هو حق وحي أركتي بن آدم كونه وأركتي بشر وشيء مستقبل كسيده وتلمامسه dhicistoodii bana waqti kulay ba qaadataa in sha Allah ta'ala mawduuca kan intaas aan ku soo gabagabeynay wallahu a'lam billahi tawfiiq